بسم الله الرحمن الرحيم كلانتها بوندا وديال كسو دوادا وركا تلفزيونka NTN qodobada warka telefishinka NTN u diyahay caawa waxa kamid noqonaya dagaal dhimasho iyo dhaawac sababay oo ka dhex qarxay ama ka qarxay deegaanka Xero Jaalle ee gobolka Mudug maxaad kala socotaa xilka qaadista lagu sameeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Finish xog ayaan kaga haynaa ciidamada xoogga dalku waxa ay dileen nin miina ku aasayay agagaarka deegaanka Daynuunay ee gobolka Baay beesha caalamka waxa ay walaac ka muujisay rabshadihii ka dhacay magaalada Hargeysa ee Somaliland hawlgalla ka dhana al-shabaab oo maalintii labaad ka soconaya deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan dawladda Soomaaliya waxa ay xayiraadii ka qaadaysaa dhawaan qaadkii ka imaan jiray dalkaasi Kenya xukuumadda Itoobiya waxay luminaysaa saamigii ay ku lahayd dekada Berbera maxay tahay arintaasi xog la xiriirta ayaan idin haynaa daawadayaal qodobada warka dibadda waxa ugu door roon ee telefishinka intii aan idin hayo waxa kamid ah Suuriya oo hakisay hawlaha garoonka caalamiga ah ee magaalada Dimashq madaxweynaha Turkiga waxa uu digniin kama dambaysa u diray dawladda dalkaasi Gariiga waa Jimce 10ka bisha 6 sanada 2022 qodobadii aan idin soo hordhigay ama hordhacaha oo faahfaahsan oo kala socotaan NTN TV ku soo dhawaada daawadaya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamuud Umar Finish ayaa la soo warinayaa in xilka laga qaadi doono saacadaha soo aadan sida aynu ku helayno xogo muhiim ah ayaa tilmaamaya in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud goordhow uu soo gudbin doono magacaabista duqa cusub ee Muqdisho kaas oo la filayo in loo magacaabo gudoomiyihii hore ee caasimadda Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed waxaana wararku intaasi ku darayaan in ay jiraan laba magacaabis oo madaxweynuhu qorsheynayo saacadaha soo socda kuwa oo la sheegay in uu ku sameyn doono taliyaha xoogga dalka iyo duqa Muqdisho iyadoo sidoo kale xogahu ay tilmaamayaan in sidoo kale la kala qaadi doono xilalka kala ah gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa Muqdisho balse ilaa iyo hadda arrinkaasi si rasmi ah uma cadda NTN TV wararkii u dambeeyay ay ka heshay filla Soomaaliya ayaa ah kuwa inta badan ay dadku ka dhursugayaan waxaana jira in sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud uu soo magacaabi doono ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda Soomaaliya saacadaha soo socda sidoo kale waxa laga filayaa ra'iisul wasaaraha inuu soo gudbiyo madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud dadka oo darasa siyaasadda ayaa sheegaya in madaxweynaha cusub laga sugayo inuu barnaamijkiisa siyaasadda uu ka mid dhigo inuu hoggaanka dalka ku soo daro wajiyo cusub ama aqoon-yahano saaxada siyaasadda ku cusub ee uusan dalka dib ugu celin ama dalka uusan dib ugu celin shakhsiyaad hore loo soo tijaabiyay oo ku fashilmay shaqada dawladda ayay yiraahdeen si kastaba ha ahaatee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa hor yaala shaqooyin culus oo ah sidii uu wax uga qaban lahaa isku dhaxyaaca ka dhex jira qaar kamid ah hay'adaha dawladda iyadoo la xusuusto sidii ciidamada qaranku ay ugu milmeen siyaasadda dalka doorashooyinkii dhawaan ka dhacay dalka Soomaaliya taasi oo abuurtay in ciidamada dalka ama ciidamada qaranka laga aamin baxo ayna timaado dib u dhac ku yimaado shaqadii ciidanka qaranka inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku dhintay 5 kalena oo ay ku dhaawacmeen kadib dagaal dhex maray laba maleeshiya beeleed kaasi oo ka dhacay deegaanka Xero Jaalle ee galbeedka gobolka Mudug waxaana la soo warinayaa in imika xaaladdu ay tahay mid iska caadi ah waxaana jira odayaal dhaqan oo ku baxay daminta xiisadda iyadoo wararku ay sheegayaan in ay imika labada dhinacba jiraan hub aruursi ay sameynayaan colaadda waxa ay ka dambeysay markii ay deegaanka Xero Jaalle meel ku dhow mid kamid ah labadaasi beelood ay ka sameeyeen qodista baraagbiyood waxayna kadib baraagbiyoodkaasi abuurtay muran dhex mara labada dhinac oo isku bedelay gacanka hadalka dagaalkan oo bilowday abaara 7 ama 9 duhurnimo ayaa waxa la sheegayaa in uu dhowr saacadood socday hadda saacadan imika ma ay socoto wax dagaal ama wax badihi
balse wararka u dambeeyay aynu ka helayno deegaanka Xero Jaalle ayaa sheegaya in wili labada dhinac is hor fadhiyaan walow ay jiraan dadaallo ay wadaan ciidamada ammaanka ee Puntland iyo kuwa Galmudug oo labadooda dhinac labaduba ku tala jira sidii ay u joojin lahaayeen xiisadda labadaas beelood halkaas ku dhex martay. taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan ururka 47aad ururka 47aad guutada 8aad qaybta 6aad ee ku sugan gobolka Baay ayaa sheegay inay deegaanka Daynunay ay ku dileen dagaalamo ka tirsan al-shabaab kaasi oo halkaasi sida ay sheegeen miina ku aasayay. ciidamada howlgalo ballaaran ka sameeyay deegaanka Daynunay ayaa la tilmaamay inay ninkaani dileen isaga oo ku hawlanaa aasidda miino uu ku aasayay agagaarka saldhig ciidamada ay ku lahaayeen halkaasi. taliyaha ciidanka xoogga gaar ahaan ururka 47aad guutada 8aad qaybta 6aad Daahir Macalin Cali ayaa sheegay inay sii xoojinayaan hawlaha ay ka wadaan gobolka Baay ee amniga ku sugayaan. dagaalamayaasha al-shabaab ayaan weli ka hadlin dilka loo geystay xubinta la sheegay inuu ka tirsanaa ee miinada halkaasi ku aasayay kaas oo ay ciidamada xoogga dalku soo bandhigeen. war-saxaafadeed ka soo baxay xubnaha beesha caalamka ee maamulka Somaliland ka taageera geedi socodka doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda ayaa walaac ka muujiyay rabshadihii shalay ka dhacay magaalada Hargeysa ee Somaliland. qoraal ay si wadajir ah u soo saareen madaxda wadamada UK, Finland, Netherlands, Holland, Denmark, Sweden iyo boqortooyada Ingiriiska iyo midowga Yurub ayaa waxaa lagu yiri saaxiibada caalamka ee la socda nidaamka dimuqraadiyadda Somaliland waxay aad uga walaacsan yihiin dhacdooyinkii gacanka hadalka watay ee Hargeysa ka dhacay kadib barnaamijyadii siyaasadeed. waxaa dhammaan dhinacyada ku boorinaynaa inay isxakameeyaan si xaaladda loo dejiyo uusanan u imaanin dhaawac iyo dhibaato soo gaarta dadka shacabka ah. waxay intaasi ku dareen si loo ilaaliyo nabadda deganaanshaha iyo dimuqraadiyadda Somaliland waxaa muhiim ah in dhammaan dhinacyadu ay ka qayb qaataan wada hadallo wax ku ool ah lana joogteeyo isafgarad iyo deganaansho si loo gaaro horena loogu socdo ayay sii raaciyeen qoraalkoodii ka soo baxay beesha caalamka. hagaag weli waxaad nagala socotaan NTN TV. ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa guutada 5aad qaybta 7aad ee ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa maalintii labaad howlgallo ka dhan ah al-shabaab ka wada inta u dhaxaysa degmooyinka Beledweyne, Matabaan iyo Maxaas ee gobolkaasi Hiiraan. howlgalkan ayaa waxaa hogaaminaya gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan iyo taliyaha guutada 5aad ee qaybta 7aad ee ciidanka xoogga dalka Colonel Maxamuud Xasan Ibraahim Baakaay iyo taliyaha qaybta booliska Hiiraan Isaaq Cali Cabdulle. taliyaasha horkacaya howlgalkani ayaa waxa ay sheegeen in ujeedka howlgalkani uu yahay mid lagu doonayo in al-shabaab looga saaro meelaha ay kaga sugan yihiin inta u dhaxaysa degmooyinka Beledweyne, Matabaan iyo Maxaas ee gobolka Hiiraan kuwaas oo xilliyadii u dambeeyay ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadeen ururka al-shabaab. waxaana dhacday in ilaa dhowr jeer ay al-shabaab la wareegeen gacan ku haynta guud ahaan degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan taasi oo ah xadka u dhaxeeya labada maamul ee Galmudug iyo Hirshabeelle. dawladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu wadaa inay fasaxdo qaadka lagu magacaabo miirowga ee ka imaan jiray wadankaasi Kenya kadib wada hadal dhex maray madaxda sare ee labada dal. madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo safar ku tagay magaalada Muqdisho ayaa dhigiisa Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu kala hadlay arrinta la xiriirta fasaxitaanka qaadka waxaana la sheegay inay isafgarad ka gaareen labada dhinac arrinkaasi. dhinaca kale beeraleyda qaadka Kenya ayaa sheegay in laba toddobaad kadib uu dib u bilaaban doono ganacsiga qaadka kaasi oo hakad ku jiray muddo 2 sano ka badan. xiriirka dawladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaan wanaagsanayn intii uu xilka hayay madaxweynihii 9aad ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana dhowr jeer la joojiyay qaadka ka imaan jiray dalkaasi Kenya marka laga reebo tiro yar aan badnayn oo si dhuumalaysiga dalka ku soo gali jiray ma imaanin dalka labadaasi sano si duulimaad ah qaad ka yimaada dalkaasi Kenya. dawladda dalkaasi Itoobiya ayaa la sheegayaa inay lumisay saamigii ay ku lahayd dekedda Berbera ee Somaliland kadib arrimo hor leh oo la isku afgartay kuwaasi oo la dhaqan gelin waayay. tilaabadani ayaa la rumaysan yahay inay culays ku noqon karto xukuumadda Addis Ababa marka loo eego hamigooda ku aadanaa inay ka faa'iideystaan saamiga ay ku lahaayeen dekedda Berbera. Itoobiya oo aan lahayn bad iyo deked ayaa
ayaa u bisimbisoonaysa ama u marmarsiyoonayso inay la wareegto dekad ku taala Soomaaliya balse sida muuqata waxa ay lumisay heshiisyadii ay ka gaartay ku lug lahaanshaha dekada Berbera waxaana imika soo baxay warar sheegaya in gabi ahaanba dekadaasi saamiga ay ku lahayd iska xireen Somaliland Ethiopia ayaa saami dhan 19% ku lahayd marsada Berbera halka ay adda lagu magacaabo ama shirkadda lagu magacaabo DB World ay ku lahayd 51% sidoo kalena dawladda Somaliland ama maamulka Somaliland ayaa lahayd saami dhan 30% ha ahaatee Ethiopia ayaa haatan wax saami ah ku lahayn dekada Berbera sida ay sheegeen wasaaradda dekadaha ee Somaliland dawladda Suuriya ayaa hakisay dhammaan duulimaadyadii garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Dimashq kadib markii Israa'iil ay weerar cirka ah ku qaaday meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Dimashq wakaaladda wararka Suuriya ee Sana ma aysan sheegin shaqo joojinta balse waxa ay sheegtay in duulimaadyadii la hakiyay kadib markii qaar ka mid ah qalabka garoonka uu shaqayn waayay ku dhawaaqista ayaa timid kadib markii warbaahinta dawladda ay sheegtay in gantaalla Israa'iil ay leedahay lagu bartilmaameedsaday gudaha caasimadda Suuriya ee Dimashq difaaca cirka Suuriya ayaa qabtay inta badan gantaallada halka qaar ka midana ay ku dhaceen gudaha magaalada iyo garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi madaxweynaha dalkaasi Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa dawladda Greece uga digay ciidamada ay ku daabulayso badda Aegean ee muranku ka taagan yahay taasi oo sii kicisay xiisadda ka dhex taagan labada dal Erdogan oo ka qayb galay dhoolatus ay sameeyeen ciidamada Turkigu ayaa sheegay in marna aysan ka tanaasuli doonin lahaanshaha badda Aegean ee isku hayaan labadaasi dal Turkigu kama tanaasuli doono xuquuqda ay ku leeyihiin badda Aegean kamana labayn doono isticmaalka awoodda si waafaqsan heshiisyada caalamiga ah ayuu yiri madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan sidoo kale madaxweynaha Erdogan ayaa ugu baaqay Greece in ciidamada ka saarto aagga lagu muransan yahay ayna dhowrto heshiisyada caalamiga ah ee la xiriira badaha caalamka warkii ood kala socoteen NTN TV waanaga intaas daawadayaal aad ay ugu mahadsantihiin la jaanqaadkiina iyo daawashada warkan waxaa idiin soo saaray idiin farsameynayeen iskuguna soo kiindubariday Liibaan Maxamed Aadan anigoo Cali Maalinayna waa idin la socodsiinayay kulanti dambe oo xiiso la daawadayaal NTN TV